wararka ka imaanaya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in gudaha magaaladan si gaar ah goobo bartilmaameed ah diyaaradaha dagaalka duqeymo ay ka geysteen goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan argagixisada sidoo kalena ahaa xarumo gaadiidka lagu xareeyo ayaa diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen waxaana la sheegay in ugu yaraan 6 salbo ay diyaaradaha dagaalka ay ku duqeeyeen halka lagu magacaabo Villa Aadan Yabaal oo ahayd goob ay deganaayeen xubnaha ugu sareeya argagixisada sida gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ee shabaab Yuusuf Kabe ku tugtay iyo xubno kale oo sarsare oo argagixisada ka tirsan duqeymaha oo ahaa kuwa culus oo isxiga ayaa laga maqlay bartamaha iyo hareeraha magaalada waxaana la sheegay in sidoo kale la duqeeyay geerish ay ku xareysnaayeen gaadiid ay laayeen xubno ka tirsan kooxda argagixisada ee shabaab ila wareedyo ku sugan aagaas ayaa sheegay in duqeynta la maqlay waxayna ay sheegeen in bartilmaameed ahayd waxaana la tilmaamay duqeynta ee ka dhacday goobo muhiim ah oo shabaab madaxdooda iyo sidoo kale gaadiidkooda dagaalka ay ku sugnaayeen isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga